kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxa qayb ka Abiy oo markale ka farxiyay dadka ku nool gobolka Tigreega duulimaadada diyaaradaha oo dib u bilowday diyaaradda Ethiopian Airlines oo si toos ah uga howlgalaysa gobolka Tigreeg warbixinada ugu dambeeyay maxaa ka jira in saraakiil ka tirsan ciidamada dawladdu ay tageen qaybo kamid ah gobolkan iyagoo aan la ogeyn hadaba warbixin ayaanu idinka keenaa saaxiibayaal shakiga iyo warbixinada kale ee xaaladda guud ee waqooyiga Ethiopia diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa dib u bilaabday duulimaadyadii gobolka Tigreeg waxaana la soo warinayaa in maalintii labaad ay si toos ah uga howlgalayso diyaaradda Ethiopian Airlines waxa ay durbaba bilowday qorshaheeda ku aadan shaqaynta gobolkan waxaana diyaaradaha iyo sidoo kale xubnaha kale ee duulimaadyadu ay u horkacday inay ka shaqeyso gobolkan dib ay u bilowday duulimaadyadeeda iyadoo ay ku tagi doonto gobolka oo dhan dagaalada gobolka Tigreeg ka socda 2 sano xitaa ma aysan tagin waxaana ay duulimaadyadu noqdeen kuwa mar labaad ay ku tagto iyadoo duulimaadyadii ugu horeeyay ganacsi ahaan ay ku tagtay magaaladan Tigreeguna 18 bilood gudahood aysan tagin sida shirkadu ay sheegtay war ay soo saartay 2 maalin ka hor ayay shirkadu ku sheegtay in 18 bilood kadib ay gudaha u tagtay gobolka Tigreeg oo ay wafuud heer caalami ah dad shacab iyo mas'uuliyiin kale ay geysay wararka ayaa ku beegmaya iyada oo maalin kadib markii wafdi ka kooban mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya madaxa shirkadaha ganacsiga ay booqasho ku tageen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreeg waxaana dhaqan galay heshiiskii nabadeed ee bishii hore la gaaray sanadkan heshiiska waxa uu noqon doonaa mid suuragal ka dhigi kara in la heshiiyo iyadoo Abiy Ahmed uu ka farxiyay dadka gobolka Tigreeg una sheegay in dib loo soo celin doono dhammaan adeegyada asaasiga heshiiska ay ku jiraan ballanqaadyo lagu soo celinaya adeegyadii ay u baahnayeen ee dadka gobolka ku sugan ayaa soo afjaraya dagaalo muddo 2 sano u dhaxeeyay ciidamada federaalka Ethiopia iyo xulafadooda oo ay ama xaari canfariira taraya ku jiraan iyo sidoo kale kuwa Tigreeg kuwaasi oo ay ku dhinteen kumanaan qof malaayiin kalena ay guryahooda isaga carareen dib u bilaabinta duulimaadyadan waxa ay sahlaysaa qoysaska inay dib u midoobaan fududeeyaan soo celinta dhaqaaqa ganacsiga dhiirigelinta dalxiiska iyo sidoo kale geenista fursado badan oo bulshada ay heli karta ayay yiraahdeen maamulka shirkadda wakiilka ka socday Addis Ababa ee Ethiopia ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in duulimaadkii ugu horeeyay ay ku sii jeeday magaalada Maqale diyaaraddu si buuxda u tagtay magaalada oo aysan la kulmin wax kale kii labaad iyo kii saddexaadna ay si nabad ku tagayso guddood ku dahan gobolka ayaa hadda ku xiran ama haysta koronto la'aan waxaana dib loo soo celiyay adeegyadii isgaarsiinta 27 magaalo halkaasi ku yaala sida ay sheegtay warbaahinta dawladda maalmihii la soo dhaafay dhanka kale waa dhiibista hubka culculus ee dib u bilaabida waajibaadka dastuuriga ee ciidamada ayaa sidoo kale waxay noqonaysaa mid kale oo kaalin weyn ka qaadanaya Abiyna waxa uu shaki ka muujinayaa in la aamini karo Tigreeg in kale taas oo hadda la isweydiinayo wanu soo laaban doonaa wararka kale aan eegi doonaa qaraxyo waaweyn ayaa ruuxay magaalada caasimadda ee Kiev bilowga sanadkan iyo saacadii ugu horeeyay qaraxyo badan ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee ugu horeyso Kiev waxaana daqiiqado kadib saqdi dhexe la soo wariyay in ay dad badan ku dhinteen sanadka cusub gudihiisa weerarkii Kiev ka dhacay ayaa dhacay maanta Isniina waxaana uu daba socday ugu yaraan 20 gantaal oo nooca loo yaqaan Crackers Missiles loogu ganay bartamaha magaalada Ukraine oo dhanna waa loo qaybiyay waana mas'uuliyiinta halkaas waxay sheegeen in weerar argagax uu ahaa habeenkii sanadka cusub uu dhashay iyo sidoo kale habeenkiisa labaad wararka cusub ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in weerarkani uu dhigayo ama uu yeeriyo seeriga duulaanka hawada ee dalka oo dhan dalka qaar ama dadka qaar ayaa Kiev waxa ay isaga carareen naftooda si ay u badbaadsadaan iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay u muuqato in ay naftooda ay weyn kareen duqa magaalada Kiev Vitalia Kidashenko ayaa ku sheegay Telegramkiisa in qaraxyadii ugu horeeyay ee sanadka cusub ay bilowdeen qiyaastii 30 daqiiqo kadib saqdi dhexe ee xalay iyaga oo waa garaacay 2 degmo waxaana uu sheegay in aysan jirin wax war oo ka soo baxay oo ku aadan khasaraha ka dhashay maamulka militariga ee magaalada ayaa sheegay in 23 walxaha hawada ah ee Ruushku soo riday la burburiyay isla markaana ay shaqeynayeen nidaamyada difaaca hawada goor hore oo fiidnimadii ahayd madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dadka reer Ukraine ay dagaalami doonaan ilaa ay guul ka gaaraan dagaalka hadda socda oo bishan iyo sidoo kale bisha soo aadan ama bilaha soo aadan 10 bilood ayuu dagaalku socdaa Zelensky waxa uu sheegay in loo aabiyeeli doono cidna waan dagaalameynaa waana sii wadi doonaa dagaalka ereygeena ugu muhiimsan oo aan rabno awoodeena inaan ku muujino waa guul sida uu yiri madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky waxaan rabaa in aanu dhamaantiinba idinku dhaho waad mahadsantiin Ukraine waa cajiib
waa geesiyaal waxaynu sameynay ma jirto cid sameyn karta bal eega sidaan u difaacna dalkeena ayuu yiri Zelensky waxaan u dagaalamaynaa in aynu iska celino hal koox dal oo dhan ayaa nagu soo duulay dhammaan goboladeena waa ay burburiyeen ayuu yiri weeraradii hore ee lagu qaaday Kiev ayaa waxyeelo u geystay hoteelo waaweyn iyo goobo dhismayaal dadku ay degan yihiin waxaana ku dhintay ugu yaraan hal qof ugu yaraan 10 kalena oo ay ku dhaawacmeen duqa magaalada waxa uu sheegay in Japan wariye u dhashay uu kamid ahaa dadka dhaawaca loo qaaday isbitaalka la geeyay film sameeye kale ayaa waxa la sheegay in guri dabaq isagoo ku jira oo u dhow hotel waxyeelo ay soo gaartay la sheegay inuu halkaasi isagoo oo qubaysanaya dhibaato ay ka soo gaartay waxa sidoo kale la soo warinaya in weeraro kale oo cirka ah lagu qaaday cadawga Ruushku waxay burburin karaan xasiloonida iyo sidoo kale siyaasadda laakiin ma burburin karaan ruuxdeena iyo nafteena ayuu yiri waa maxay sababta aan saaxiibada ula dabaaldegayno sababtoo ah sanadkan waxaan fahansanahay inay muhiim tahay in dadka loo dhawaado ayuu yiri markale weerar ayaa sidoo kale laga soo sheegaya koonfurta magaalada Mykolaiv ee wadanka Ukraine waxaana la soo warinayaa in halkaasi ay dhibaatooyin baan ay ka dhasheen sida sarkaal maxalli uu sheegay waxaana uu tilmaamay in 7 qof ay dhaawacmeen tiro kalena waxyeelo ay soo gaartay barasaabka gobolkan Vitaly Kim ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada Ruushka ay duqeymo la beegsadeen dad rayid ah arrintaasi oo Moscow ay hore u beenisay sida laga soo xigtay damaca iyo sidoo kale dhibaateynta dadka ee ciidamada Ruushka dadka qabsaday magaaladan ma ahan kuwa muhiim ah sababtoo ah waa cadow waxana ay burburiyeen dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha ilihii bulshada iyo goobihii muhiimka iyagoo beegsanaya goobaha la degan yahay ama guryaha dadku ay degan yihiin hoteelada wadooyinka garaashada sidoo kale goobaha ganacsiga iyo meel walba oo ay bulshadu isugu timaado ayuu doqa magaalada weeraradan waxay ku soo aadeen si aan caadi ahayn oo aad u adag iyagoo ku socdo si xawli ah waxaana uu ahaa mid argagax leh 36 saacadood kadib ayuu weerarkan dhacay markii ciidamada Ruushku weerarkii ugu weynaa ay qaadeen Khamiistii iyo Jimcihii oo ay ku burburiyeen kaabayaasha tamarta sida dawladda Ukraine ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa iftiimiyay qasaaraha ba'an ee dadka rayidka ah ee weerarkan ugu dambeeyay ay geysteen waxaana uu sheegay in waqtigan weerarka gantaalada ee Ruushka si ula kaca ay u beegsanayaan meelaha la degan yahay xitaa kaabayaasha tamarta ayuu yiri Putin waa dambiilo qaran waa dambiilo dagaal waxaana uu u dabaaldegayaa isagoo dambiilo ah sanadka cusub isagoo dilaya dadkeena ayuu raaciyay waxa uu sidoo kale ku baaqayaa Ruushku in laga qaado kursiga joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay wakiilka xuquuqul insaanka ee Ukraine Dmytro Lobanest waxa uu weerarkan ku tilmaamay mid argagixiso ah oo habeen sanad cusub oo dabaaldega la qaaday waxaana uu Ruushku ugu baaqay inay joojiyaan waxyaabaha ka baxsan bini'aadanimada wasaaradda difaaca Ukraine ayaa dhanka kale waxay ka jawaabtay fariin diidma ah oo loo diray iyadoo sheegtay inaysan waxba ka jirin warkaas weerar kasta oo cusub oo gantaal lagu qaado kaabayaasha rayidka dad badan oo reer Ukraine ah ayaanan ku qanacsaneen inay ku noolaadaan iyagoo raba baahida loo qabo in la dagaalamo ilaa burburka gabi ahaanba nidaamka Putin laga hortago ayaa lagu yiri Telegramka bandowga habeenkii saqdhexe ee wadankan waqtiga maxalliga ah ayaa wali Ukraine ka jira taasoo ka dhigaysa in la diiday in la isku soo baxo maadaama duqeymo aan loo meeldayn ciidamada Ruushku ay ka wadeen gudaha gobolkan taasoo ka dhigan in dhibaatadii ugu weyneed ay ka taagan tahay gudaha wadanka Ukraine Ruushkuna uusan cidna waabayelin gudaha saxabi halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono waa barnaamijkooda leh nabadgelyo